Hadda waxaan ka hadlaynaa fikradaha dhaqaalaha. Fikradaha dhaqaalaha saddex ayaa loo qaybiyaa. Fikradda koowaad waxaa ku hormara shakhsiga. Fikradda labaadna waxaa ku hormara shirkadda ama dadka isu tegay. Fikradda saddexaad waxaa ku hormara dowladaha. Saddexda fikradood hal meel oo ay ka siman yihiin ayaa jira. Saddexduba waxay ku dhisan yihiin sida beeraha iyo badaha dhaqaalaha haddii ilaahay idmayo wax soo saarka mu'alifnimada ayay ku dhisan yihiin. Markaa tahay ifan dowlad oo kale waxay dowladdaasi ku noqon kartaa dowlad dhaqaale badan in ay isticmaasho kheyraadka dhulkeeda iyo kheyraadka badaheeda iyo awoodda dadkeeda. Saddexda fikradood marka ay isticmaasho waxay heli kartaa dowlad adduunka karaamo ku leh ama sharaf ku leh dhaqaalana leh noqon karta. Saddexdaas bay u noqon kartaa dowladdu markay cilmi baaris u dirsato dadkeeda dhaqaalayahanada ah ama mu'alifiinta ama fikradaha curiya waxay keeni karaan fikrado badan oo curis fiican ah. Sidoo kale dowladdu waxay kaloo qaban kartaa dadkeeda baahan oo dhan ayay ku shaqayn kartaa iyadoo barnaamijkay doonto basmayn kartaa ama dan wadaag ka dhigto ama barnaamij kale oo ka madax bannaan ha ka dhigto bay adeegsan kartaa. Sidoo kale dowladaha iyo dadka shakhsiyaadka iyo shirkadaha saddexdaba hal maado oo laga siman yahay oo hoos u dhigta ayaa jira. Maadadaas oo ah maadada loo yaqaano deynta ama inay cid kale wax kugu yeelato. Sidoo kale saddexduba waxay ku dhisan yihiin adkaysi iyo xilfi. Mar walba haddaad shakhsi tahay waxaad u baahan tahay cid aad ama fikrado ka hesho ama hawlo badan kuu qabata ama aqoon aad ka hesho ama xoog aad ka hesho. Haddaad dowlad tahayna dad iyo dhul baad u baahan tahay iyo bado. Haddaad tahay shirkadna waxaad u baahan tihiin fikir baaxad leh oo aad wax ku fikirtaan. Dhaqaalaha dadka ayaa curiya laakiin dhaqaaluhu midka wax lagu qabto ma ahan. Sababtoo ah haddaadan curiski haysan dhaqaale ka soo aad haysatid waxba ma qaban kartid. Dhaqaalihii aad haysay ayaad dhammayn kartaa. Laakiin sirta wax qabata waa curiska. Subscribe garee ku biira channelka waa heegan.